waxaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa hadduu rabbi ogolaado Steve Jobs oo ah ninkii aasaasay shirkadda caanka ah ee Apple. balse marka hore waxaa si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad la sii wadaagtid asxaabtaada fikirkaagana aad noogu dhaaftid qaybta commentiga. haddii aad ku cusubtayna subscribe dheh, gabaleelkana furo si aad u heshid barnaamijka kan xiga. mahadsanid. Steve Jobs waxa uu ahaa ganacsade Mareykan ah isla markaana hal-abuure door muhiim ah ka ciyaaray guushii kumbiyuutarada ee Apple iyo horumarintii tiknoolajiyadda cusub sida iPad iyo MacBook. Steve waxa uu ku dhashay February 24 1955 waddanka Mareykanka magaalada San Francisco ee gobolka California. waxaa dhalay lamaane lagu kala magacaabi jiray Cabdulfataax John Chandali oo u dhashay waddanka Syria iyo Johnny Shibal Simpson oo u dhalatay waddanka Mareykanka. waxayna awoodi waayeen inay koriyaan wiilkooda, waxayna go'aan ku gaareen inay siiyaan dad awooda korintiisa iyo waxbarashadiisa. waxaana lagu magacaabi jiray Clara Jobs iyo Paul Reinhold. Steve waxa uu raacay Paul iyo Clara, kuwaasoo had iyo jeer u arkayay inay yihiin waalidkiisa dhabta ah. aabbaha dhalay Steve, Paul wuxuu ku dhiirigeliyey inuu tijaabiyo qalabka elektarooniga ee garaashkooda. tani waxay dhalisay xiisaha cimriga dheer ee elektarooniga iyo qurxintiisa. Steve wuxuu bilaabay iskuul maxalli ah oo ku yaala California, kadibna wuxuu iska diiwaangeliyey Reed College oo ku yaala gobolka Oregon. waxbarashadiisa waxaa lagu gartay natiijooyin aad u wanaagsan, laakiin wuxuu ku dhibtooday waxbarashadiisii rasmiga ahayd. Steve dadaalkiisa intaa kuma uusan ekin, balse wuxuu ka shaqo bilaabay shirkadda Atari oo ahayd shirkaddii ugu horreysay ee samaysay geemamka. intii uu joogay Atari, Steve waxay si fiican iskugu barteen Steve Wozniak oo ahaa saaxiib u dhow. Steve ayaa si weyn u soo jiitay farsamayaqaanka kombiyuutarka oo isagu la kulmay 1974. Steve iyo Daniel waxay u safreen waddanka Hindiya. intii lagu jiray dhowrkii bilood oo ay joogeen Hindiya, waxa uu Steve qaatay diinta Buddhistaha. sanadkii 1976 Steve Jobs iyo asxaabtiisa waxay sameeyeen kumbiyuutarkii ugu horreeyay ee Apple. Steve Jobs iyo saaxiibadiisa Wozniak iyo Ronald Wayne ayaa mar kale sameeyay kumbiyuutarro Apple. bilowgii kumbiyuutarada Apple waxaa laga iibiyey garaashka waalidiinta Steve. 1984 Steve iyo asxaabtiisa waxayna shaqadeeyeen Macintoshkii ugu horreeyay ee shirkaddooda Apple. waxa uu ahaa kumbiyuutar lagu isticmaalo guryaha iyo xafiisyada ee loo yaqaano personal computer. tani waxay ahayd guul muhiim ah, waxayna furo u noqotay dadaalkiisa. inkastoo ay jireen guulo badan oo hal-abuurnimo ah ee shaqooyinka ka jiray Apple, waxaa jiray khilaaf sii kordhay oo u dhexeeya Steve iyo shaqaalaha kale ee shirkadda Apple. sanadkii 1985 waxaa laga saaray shaqadii maamul. wuxuu Steve iska casilay xilkii uu ka hayay shirkadda Apple. martaba ayuu dib u eegay dhacdada, wuxuuna sheegay in shaqada laga eryay Apple ay ahayd waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku dhacay isaga. waxay ka caawisay inuu dib u helo dareen cusub iyo xorriyad. sidoo kale shaqo kama helin shirkad weyn. in yar kadib markii uu ka tagay shaqada Apple, Steve waxa uu aasaasay shirkad la yiraahdo Next Computers, waxayna ahayd shirkad Mareykan ah oo sameyn jirtay kumbiyuutarada iyo software-ka. shirkaddani weligeed si gaar ah uma aysan guulaysan, iyadoo ay ku guuldareysatay inay ka hesho iib tiro badan suuqa. si kastaba ha noqotee, sanadihii 1990 shirkadda Next software-keeda waxaa loo adeegsaday web objects-ka loo isticmaalo Apple Store iyo iTunes Store. sanadkii 1996 shirkadda Apple waxay iibsatay shirkadda Next, waxayna ku iibsatay $429 milyan. guul aad u badan ayaa Steve ka gaadhay shirkadda Pixar oo ah shirkad soo saarta filim kartuunka. shirkadda Disney waxay qandaraas la gashay shirkadda Pixar si ay u abuurto filimo sida Toy Story, balse filimadaas animation-ka ah waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan oo faa'iido badan leh, iyagoo siinayay Steve xushmad iyo guul. Steve ayaa dib ugu laabtay shirkadda Apple, isagoo bilaabay jihooyin cusub ee shirkadda ku socoto. qaar ka mid ah mashruucyada ayaa la soo gabagabeeyey. taa beddelkeeda shaqooyinku waxay dhiirigelinayaan dhammaan higsiga cusub oo alaabooyinka ah, kuwaasoo diiradda saaraya gelitaanka nashqadeynta, soo jiidashada iyo astaamaha hal-abuurka leh. sanadkii 2007 shirkadda Apple waxay si guul leh u gashay suuqa taleefannada gacanta, iyadoo soo saartay iPhone-koodii ugu horreeyay ka ugu shaqaynaya touch screen-ka.
kadib shirkaddu waxay soo saartay aaladda portable-ka ah ee muusiga ee loo yaqaano iPad-ka sanadkii 2008 iTunes-ka wuxuu noqday tafaariikhdii labaad ee ugu weyneyd ee waddanka Mareykanka iyadoo ay ka badan 6 bilyan oo heesood la dejistay halka 200 milyan oo iPad-na ay iibisay shirkadda. Steve wuxuu ku fiicnaa suuq-geynta wuxuuna dadka ka dhaadhicin jiray siday uga wanaagsan tahay alaabtooda kuwa suuqa yaala. sanadkii 2011 bishii Oktoobar Steve waxa uu ku dhintay waddanka Mareykanka magaalada Palo Alto ee gobolka California. waxaa halkaa inoogu eg barnaamijkeennii aan ku eegaynay maanta Steve Jobs oo ah shakhsigii aasaasay shirkadda Apple. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshayna la sii wadaag asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena YouTube-ka gabalaalkana furo si aad u heshid muuqaalada kan xiga